waan ku salaamay daawada meel walbo aad joogtid ku soo dhawow qaybta xigtaa ee sheekadeenii ku saabsanayd mashruucii la dagaalanka nuurka. sheekadaani waxaa qoray Cabdiraxmaan Cusmaan Jaamac anigoo maracada ayaa kula socodsiinaya. soo gudbinta sheekadan waxaa taabageliyay Isbitaalka Marwa Fertility Center. ma ogtahay inay jiri karaan xanuuno kuu diidaya in aad ilmo dhasho, diintana kuu ogoshahay raadinta ubadka alla ayaa bixiye. fadlan booqo Marwa Fertility Center. qaybaha dhexe ee sheekada ayaan isla soo gaarnay. qaybtii hore waxay noo joogtay markii aynu ka faalloonay heesta gabi ka dhacay oo ka hadlaysa dhibaatooyin markaasi la sii saadaalinayo oo Soomaalida ay galayeen. qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa anigoo sariirta hoteelka aan deganahay dangiiga oo qadaadka u jiifa oo fikir ku fogaada ayaa fariin ay ii soo dhacday. waan soo qaaday koortaydii mise waxaa soo diray Ben Solomon. fariintu waa jaad xiran oo loo yaqaano encrypted message. waxaan ku soo dejiyaa applicationka aan ku furto fariimaha classified-ka ah ee laga ilaaliyo inay ku dhacaan gacan kale ama la jabsado. dhambaalkaasi wuxuu i farayay inaan ka faa'iideysto habeenada soo aadan ee dayaxu 13 ilaa 15 uu yahay oo ah 3 habeen ee awoodda. waa habeenada dayaxu uu ugu tamarta badan yahay. waxaanu Ben ugu boorinayaa inaan qaato habeenadaasi go'aan kasta oo aan gaarayo. tallaabo kasta oo mudnaan gaar ahaaneed lana waxay qaadi jireen habeenadaasi. ma aanan fahmin sirta ku jirta habeenadan, waase mid raadeyn ku yeelatay habfikirkayga iyo kaydka xasuustaydaba. tanuu Ben Solomon danaynaya waa inaan gaaro go'aanka aan ku qaadanayo darajada 23aad. anigase iima muuqato taas. darajadaasi wax ii diidan ma ogiye. mar kasta oo aan maqlo cabsi iyo argagax ayaa gilgilaya laabtayda. waxaan ugu jawaabay si sarbeeban laakiinse isaga uu fahmayo. erayadan ayaan u qoray: The bride is beautiful, but she married to another man. dhabayshu way quruxsan tahay laakiinse nin kale ayay u baxday. intii uu qoslay ayaa kadib wuxuu igu yiri Rolling Stone oo uu la jeedo ruux rogmanaysa oo aan weli diyaar u ahayn invitation. Ben Solomon wuxuu ii sheegay in howlo badani ay u xaniban yihiin darajada aanan weli gaarin. wuxuu igu booriyay inaan nafta aan ku dirqiyo inaan koro jaranjarada oo aan darajadaasi hanto. talooyin iga caawinaya ayuu isiiya laakiin ma aanan fulin mid ka mid ah dhammaan talooyinkaasi, waayo ma aanan jecleen inaan noqdo waxa ay doonayaan inaan noqdo. welwel ayaa biyo dhigay waxa aana hiifay wax aan gacanta kula jiro. cod ayaase ii baxay oo igu leh adkayso, aad wax badan ogaatide. codkan waan garanayaa, waa codkii hore iila hadlay ee isla erayadan oo kale iigu yidhi. waxa iisii caddaatay inay gacmo shishe igu shaqaysanayaan. awood aan ku garto ciddaasi ma aanan lahayn. warwar tardhaaf ama xadhaaf ayaa i beer qaaday. kadibna waan yara dawaqay oo hurdo dheer ayaan galay. waan riyooday. riyadii dhexdeeda qof dharcad xiran ayaa igu soo dhowaaday. waan jeclaystay inaan arko laakiinse ma aanan awoodin inaan isla sugto. wuxuu igu yidhi ha werwerin, hana murugoonin. uma xumid sida aad ismoodaysa oo dhan. darajadaasi ha doonin. ma tihid sixiroole ee alla kala dhinteene. waxaan ku qayliyey oo haddaa maxaan ahay? maxaa meeshan ka qabanayaa? ima uusan jawaabina wuu iga sii dhaqaaqay isagoo hirkiisii laaca iisii muuqanayo. waxaan hurdadii ka soo kacay anigoo aan firiirsan oo ilmadu dhabanadeeda hilqanayso. riyadaas aan arkayna waxay badashay meertadaydii nololeed ee aan ku soo qaatay 9 sano gudcur iyo mugdi. waxa ii caddaatay oo riyada ii fasirtay cabsidii aan ka qabay darajada 23aad. faahfaahin dheeri ah se la ima siinin. fahan ayaan u baahday. markaasi kadib waxaan bilaabay inaan xog goobo. helidda xogtaasi oo adag ayaan waqti dheer ku qaatay baaritaan website iyo YouTube. dhiganayaal sooyaal leh. waxaanse dareemay gaajo ay bogga iyo beerku isku kay haystaan. waxaan u soo baxay maqaaxida Starbucks oo aanan ka fogeyn barada aan deganahay ama goobta aan deganahay. cunto fudud ayaan dalbaday. markii aan in nabar ah halkaasi aan dul fadhiyey ayay agteeda soo fadhiisteen 2 qof oo muuqaalka oromada lahi. waan eegay aniga oo dareensan inay aniga ii socdaan. waxa ay bilaabeen inay af Soomaali igula hadlaan. waan yaabay. waxaan ka shakiyey oo nafta igu tiri adiga ayaa laguu soo diray. markii aan dareenkaygii wada siiyey oo aan si badownimo lihi u eegayo ayuu midkood igu yidhi iiga waran sida sixirka loo barto. cabsi ayuu wadnuhu hoos ii go'ay. waan naxay. waxaan isweydiiyey waa maxay nimankan ka hadlaya waxa aad maanta oo dhan aad baaraysay. sirdoon ayaan u qaatay oo og dabagalna ku haya wixii aan ka baaraya mareegaha internetka. kii kale oo guraya ayaa iigu yidhi haye, isaga oo sii wata dabadeed 80 caanamaal iyo 40 maalmood ayaad buur saarnaanaysaa oo aad wax aqrinaysaa. haye, markaas ayuu kuu imaanayaa wax muuq aad ka naxda lahi. kadibna haye,
markaas waxaad gelaysaa heshiiska lagugu barayo sixirka. cabsi ayaan la kash leeyahay oo bowdyaha ayaan isku garaacayaa, wadnahaygana dhulgariir ayaa ka oogan. baaladaymood iyo isdadab aan hadba hadalkooda dhig ugu dhigayaana wuu imaan qaaday. waan sii argagaxay, dabadeed iyaga oo hal mar kor u qaadaya codkooda ayuunbay yidhaahdeen, waxaa hoogay kan sixirka cilmi mooda, saaxir kastaa abaalkiisu waa jahannama. way kaceen oo way dhaqaaqeen. dhidid waaweyn ayaa iga soo daatay. waxaan garwaaqsaday in hab kale oo sare la iigu siiyey xog aan orod iyo ayaan kula ah. culayskii ayaase iga degay. waxaan aqoonsaday wixii aqoonta ii sheegayeen uu ahaa sixir, qalbigaygana uu ahaa ka mar walbaa ii digi jiray ee diidanaa inaan dhabbahaasi jahanta saaro. haddii aad raacdo waxa uu qalbigaada kuu sheegayo ama fitradaada, ma lumaysid ayaan kor iyo hoos u idhi. gashigii meheradda ama lacagtii meheradda ayaan guday. tallaabada ayaan hoos ka soo xaday, aniga oo baaladaymoonaya oo cabsi yari ay ugu wareegayso. waxaan soo istaagay resebshonkii hodheelka si aan furaha u qaato. mid isaguna dhankiisa furalulaya ayaa ku hadaaqay, alla wuxuu habeen iyo maalin ugu digaa madowga iyo iftiinka dhexdooda, laakiinse ma arkayaan. addoommadiisu farriimaha tooska ah ee uu soo diro ma ahan dar dhaadaya oo ku cibir qaata. lamaan kastaaba digniin ayay sidaan. furihii ma aanan qaadan oo waan kala jeestay. halkii albaabku iga xiga ayaan afka saaray. waxaan sii maqlayay gabadhii oo igaga soo dabaqaylinaysa, mudane furahaada qaado. ma aanse jalleecin. mastarkaarkaygii ayaan haabhaabtay oo waxaan kiraystay hodheel kale. habeenkaasi cabsi iyo amakaag ayaa midhanaya laabtayda oo hurdama aanan helin. waxaan aaminsanaa in saacaddii la doonaba albaabka la igu soo jebin karo. markii aan xasili waayey ayaan beerag waxaan u diray fariin email ahayd oo aan ku leeyahay, sir I need safe exit argenty. mudane ii fura marin aan ku badbaado, weliba si degdeg ah. liima soo jawaabina. argagaxii iyo baqdintii ahaya ayaa xarkihii goostay. habeenku waa uu dheeraa, shanqartuna aad ayay u badan tahay marka aad cabsi dareemayso. waxaan maagay inaan mar ka soo baxa hodheelka oo aan fadhiga la igu qaban. go'aan quran waan ku calool adeegi waayey. laba bogleen ayaan weheliya walaalba ka dhigtay. habeenkaasi anigoo soo gandooda oo gadhka iyo jilbaha iskula jira soona fadhiya ayuu igu dhammaaday. argagaxna waa uu ii dheeraa. aniga oo rafaaday oo aan waxba ka noolayn ayuu waagii dilaacay. naftaydii oo disan ayaa telefoonka waxa ay ka ballansatay duulimaad. ayaan darradeyda waa la ii waayo diyaarad baxaysa. waxa aan ku waashay waa emergency. cidda dhegaysanaysaa ma jirto. waxa aan raadiyey wakiilkii arrimaha socdaalka noo fududayn jiray ee nairobi fadhiyey. wuu iga qaban waaya telefoonka oo waan ku celceliyey. lama heli karo. markii igu yidhi wax igaga xanuun badnaa ma aanay jirin. cabsidu way sii korodhay. wuu xiran yahay ama wuu dansan yahay markii uu yidhina wadnihii ayaaba istaagi gaaray. waxaan u qaatay ciyaar uu igu bilaabay ururkii. waa habeen cimrigayga ka go'an oo dhaawac u geystay fikirkayga iyo sidoo kale fayoobidaydaba. goor ay xeere iyo fandhaal kala dhaceen oo ay nafi igu harsaneen ayaa la ii soo jawaabay. waxay ii sheegeen inaanay waxba jirin. aniguna waxaan qariyey dareenkaygii aniga oo aan aaminsanayn dejintooda. waxay i siiyeen assignmenti cusub oo muqdisho ah. beereg ayaa ii soo sheegay diyaarad uu wato sir william don inay iga qaadi doonto gegidda jomo kenyatta oo aan la qabto wax kasta oo iiga baahdo. aniga oo aan dharkaygii ka doonan hoteelkii ayaan qabsaday taxi uber ahaa si uu ii geeyo madaarka ama garoonka. mudane william ayaa si weyn ii soo dhoweeyey. waxa uu ii soo fiiqay koob uu qamri uu ku shubay. waan ka cudur daartay oo waxaan u sheegay inaanan cabin qamriga. isaga oo ila kaftamaya ayuu igu yidhi, qof aanan cabin qamriga kama mid ahan dadyowga ilbaxa ah. kuma jiro ilbaxa ayaan ugu jawaabay. waxaan weydiiyey oo aan ku idhi, mudane kulankii dubay show sanad ayaa ka soo wareegatay. anigoo u sii raaciyey, howlihii shidaalka ma bilaabaysaan? laakiin william ayaa markii dambe wuxuu igu jawaabay, dan ayaa ka soo hormartay. oo danka weyn miyaa taasi jirta oo aad doonaysaan? sir william ayaa ku gaabsaday, aadamuhu weli awood uma yeelan fahanka wakhtiga sida aanay u fahmin dumarka. mar kasta oo aad aragto in mawduuca uu bedelayo waxay ka dhigan tahay inaanu doonaynin inuu wax kuu sheego. mana sii jeclaysan anigu inaan dirqiyo aan sii qodqodo. waxaanu ka soo degnay madaar gaara oo ku dhex yaalla xero si weyn loo ilaalinayo oo ku taalla benghaazi oo liibiya ah. hore uma aanan tegin liibiya oo waxaan ku idhi, maxaad halkan inoo keentay? wuxuu ii sheegay in howlo badan uu ka qabsanayo halkan. kadibna aan u bixinno socdaalkeennii muqdisho. diyaaraddii yareed ee aan saarnayn markii aan ka soo degay ayaan hool midigta iga qabtay ku arka gaari booyad ah oo lagu rarayo. wax la yaab iila muuqday ilaa intii ay ka libdhaysayna waan sii jalleecayay. cabbaar kadib waxaa telefoonka noogu soo dhacay security alert ama digniin amni.
taasoo nafaraysa in saacadaha soo socda aanan tegin suuqyada Benghazi. waxaa laga cabsi qabay in qarax uu dhaco. fariinta amni sideedii ayaa loogu dhaqmaa, inta badanna sida ay u sheegaan ayay u dhacdaa khatarta laga digayaa. 2 saacadood kadibna waxaa dhacay qarax xoogan oo gelgelay magaalada Benghazi. wararkii ayaan furay si aan u ogaado waxa dhacay iyo khasaaraha uu geystay. tacajab ayaa labada dhaban aan gacmaha la saartay. Al Jazeera ayaa ka waramaysa qarax ruuxay dhismo ahaa warshad sifaysa shidaalka oo ku qaraxday booyad laga buuxiyo waxyaabaha qarxa ee TNT-da ay ka mid tahay. haraaga booyadda wuxuu iila ekaaday tii la rarayay ee aan ku arkay hoolkii, laakiinse ma xaqiijin karo. fiidkii markii aan isu nimid Master William ayaan si sarbeeban u weydiiyey in qarax la sameeyay ay dantooda geli karto. Sir William ayaase igu yidhi, weligaa tallaabada in kugu filan qaad. madaxa ayaan u ruuxay anigoo la imoodo arday edboon. markaas ayuu ii furay sheeko gaaban oo aalaaba hanaan sarbeeba u dhacaysa. wuxuu igu yidhi, we create the choice and then we move to capitalize on that choice. kolkaas ayaan si toosa u yidhi, markaa wixii maanta dhacay faa'iido ayaa ku jirta. anigoo si dadban u weydiinaya inay qaraxa geysteen. William ayaase waxa ugu yidhi isaga oo hanjabaadi ay ka muuqato, ha ku hafan badweynta siyaasadda danta ku salaysan. intuu iga dhaqaaqay ayuu ii soo tuuray, waxa ay danta kuugu jirtaa in afkaagu daboolnaado. af daboolani waa dahabe. markaasi kadibna waxa igu soo dhacday hees ay qaado fanaanada Hiba Maxamed Gudoon. ha fakirin naftayda weligaa ha fududaan, ha u fiirsan waxa dhacay, jacaylkana ha faragelin. Sir William Don ayaa markaasi kadib wuxuu u cawday Mr. Perek waxaana uu ku yidhi, is he trustworthy agent? isagana waa uu dejiyey oo waxa uu sheegay inay kalsooni buuxda igu qabaan oo aan u fuliyo howlo badan oo lama huraan u ahaa Dag Marow. subaxii ayuu Perek fariin ii dhaafay isagoo ifaraya in aan weydiimaha ka yareeyo Sir William oo aan ku ekaado inaan la qabto hawsha uu iiga baahda kaliya. waxaan u ballan qaaday inaan mar dambe aan la iga soo caban doonin. Sir William Don ayaa ii yeedhay. waan u tagay aniga oo isdhowraya oo u diidaya inuu dareen qaldan iga qaato. Sir William wuxuu igu bilaabay, nin wanaagsan ayaa tahay ee mid un iska jir. dunidan il qura ayaa la kala hayaa, adiguna labadii indhood waad furatay. hortaada oo kaliya eeg oo hareerahaada ha fiirin, hana ka dheeraynin xilliga aad nooshahay. waxa aan kuu diray sideeda u fuli oo waxba ha iska weydiin. Perek ayaa qaldanaa oo waxa ay ahayd inay tan kaasii reebaan, yacni maskaxda ayuu ula jeedaa. siraha aan kula wadaagayo cidnaha u furin oo ha kugu dhex dhintaan. madaxa ayaan u ruxay anigoo markaasi isu muujinaya sida nin u dhiga nugal isaga. waxaanu igu yidhi orod oo bun inoo soo qaad aynu ku sheekaysanno. markii aan dhaqaaq u holaday ayuu ii yeedhay. haddana wuxuu igu yidhi, maxaan kuu diray? aniguna bun ayaan ugu jawaabay. kuma aanan dirin bun ee biyo ayaan kuu diray ayuu igu yidhi. kadibna waxaan u raaciyey ma ahi shaqaale kuu shaqeeya ee aynu kala xishoonno. kadibna wuxuu igu soo celiyey jawaabtan, qofka Soomaaliga ah qab ayaa iskaga jira isaga oo aan waxba ahayn. kadibna waxaan ugu jawaabay, ma qaadana liidnimada. Sir William ayaa isaga oo laabta garaacaya wuxuu igu yidhi, Jarmalka iyo Talyaanigu marka aanu ka adkaanay dagaalkii labaad, haddii aan shaah u dirsanno sidaada oo kale isma soo qaluufa wuxuu igu odhan jiray, yes sir. aniguna adiga oo cidla fadhiya ayaad isla hanweyn tahay. dabadeed sheeko ayuu halkaasi iiga bilaabay oo waxa ugu yidhi, Soomaalida sida aan u doonaynay in aan u bahdilno iyo sida ay resilient ama adeega ay u yihiin isma lahan. Mareykanka ayuu noogu yimaadeen, markaasay masaajida badan dhiseen. Yurub sidaasi oo kale kaniisadihii ayay baayaceenba. waxa aanu isweydiinay jaadka ay yihiin dadkani. tan ugu yaabka badani waxa ay ahayd Toronto oo Canada ah ayaa mudaaharaad uu ka dhacay. Soomaali ayaa mudaaharaadka kaga dhex dhawaaqaysa. dhulkan waa lagu soo kala horreeyay ee lama kala laha. weedhaasi ayaa fajiciso aanu la shaamareernayn ugu noqotay. dad qaxooti ah oo la soo dhaweeyay. waa ciddii ugu horreysay ee dhawaaqaasi uu ka soo yeero. waxaanu ka baqannay inay kiciyaan dadyowga hurda ee aan halkan ku maamulno, ee aan qarniyada nanabaynay ee hurdada ku joogtayno. shir degdega ayaa la galay. waxaa la istusay haddii dadkan wax laga qaban inay dadka soo galootiga ah kicinayaan. waxaa la isla qaatay in arrintaasi laga hortago oo dacaayad lagu furo qowmiyadda Soomaalida. markiiba waxaa la bilaabay in la beegsado Soomaalida oo si gaara loo fadeexadeeyo. telefishinka ayaa laga furay canjarafayn Soomaalidu waa dad dib u dhaca oo dambiyadu ay ku badan yihiin. hablaha ayay cadaadiyaan
iyo waa cawaan aan integrationka ama falgalka la samayn karin qowmiyadaha kale. Carruurtooda ayaa dugsiyadii wanaagsaneed loo diiday, qaar waxaa lagu eedeeyey way rabshad badan yihiin, qaar kalena maskaxda in laga dilo ayaa la bilaabay. Carruurtoodii ayaa dugsiyadii wanaagsaneed loo diiday, qaar ayaa lagu eedeeyey way rabshad badan yihiin iyo qaar maskaxda ayaa laga dilay. Si looga been abuurtona waxaa la sheegay inay qabaan xanuuno nafsi ah, waxaana la sheegay inaysan la jaanqaadi karaynin waxbarashada. Xaqiiq ahaana Soomaalidu way maskax furan tahay. Kutarikutayntii iyo cadaadiskiina waxaa ku saaqiday arday badan, waxaana batay dembiyada ay galaan dhallinyarada Soomaalida marka loo eego qaxootiga kale. Madaarada ayaa lagu dhibi jiray qofka Soomaali inuu yahay loo garto baasaboorka uu doonaha site ee. Waa qorshe aanu dejinay buu yiri ninkan, in lagu wiiqo oo hoos loogu dhigo hanka sare ee Soomaalida, kuwaasoo jallaafa ku noqday caalamka. Sir William intii sheekadaasi uu iska xidhay ayuu bilaabay sheeko kale. Waxaan maanta halkan u joogno ma aha shidaal ee kheyraad ka weyn ayaanu baaraynaa. Waana uu sii watay hadalkiisii oo waxa uu yidhi, ma aha markii koowaad ee aan halkaan aan imaado, waa markii labaad. Waqtigii UNISOM ayaan madaarka Baydhabo xarun u ahayd shaqaalihii gargaarka imid, waxaana si kediisa usoo weeraray Genaraal Maxamed Faarax Caydiid. Ciidamadiisu waxay qaateen kombiyuutaradii lagu shaqaynayay. Kombiyuutaradana waxaa lahaa shirkadaha shidaalka iyo macdanta. Hal kombiyuutar ayay ku jirtay xog xasaasi ah oo ka hadlaysa mulkigii Suleymaan ama Solomon. Halkaa ha inoo joogta qaybta xigta ee sheekada ku saabsan mashruucii la dagaalanka nuurka. Sheekadaani waxaa qoray Cabdiraxmaan Cismaan Jaamac. Qaybta xigta intaan ku kulmi doonno nabadgelyo.